قلب كسيدة أنا اللي مدى دفاعيا هو الدولة وحكا بقى قايمك يا عداوة مدويك وقان عصنتو قف كستا أمانا يو وانو غيري سناي قادركين هلا جيري ciidamada qalabka sida waa qayb kamid ah quruxda uu qaran leeyahay sidoo kalena waa astaanta lagu saadaaliyo awoodda uu dal leeyahay ciidanka qalabka sida qaybihiisa kala duwan ee qaranku leeyahay waxay nolosha bulshada kaga jiraan tiir dhexaadka ugu miisaanka iyo manfaca weyn oo ah amniga dalka iyo dadkuba ku noolaadaan 18 sano ee u dambeeyay oo ay mar kale dalkeena ka hana qaaday dhismaha dawladnimada waxa heerar kala duwan soo maray sidii loo yagleeli lahaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya nasiib darro looguma guuleysan sidii la rabay habacsanaan iyo mas'uuliyad darro ayaa muuqatay iyadoo ay la soo dirseen duruufo adag ciidamadii koobnaa ee la asaasay dhibaatooyinka la soo dirsay ee haystay ciidamada waxa kamid ah qalab la'aan gaadiid la'aan tababar la'aan direys la'aan iyadoo ay dhici jirtay in dhowrkii sano hal mar loo qaybiyo halka ay habooneed inay helaan direys bilaa si bilicdooda iyo baaxadooda loo arko mushahar yari ayaa kamid ah dhibaatooyinka la soo dirsay ciidamada iyadoo xilliyada qaar aysan heli jirin mushaharkaas yar sida dhacday 9 bilood oo kamid ah waqtigii ay dalka hogaaminaysay dawladii tan ka horeysay aynaku adeegoon cadowka ilaashoon ayahaga taliyaan axadiku maraya haddaba iyadoo marxaladahaas adag ay jireen waxaa yimi isbedel kadib markii madaxweynaha Soomaaliya loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa hogaamiye ku caan baxay daryeelka ciidamada tallaabadii ugu horeysay ee uu xoog saaray waxay noqotay dhismaha iyo tayeynta ciidamada qalabka sida madaxweynaha ayaa xafiis uu ka shaqeeyo ka furtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga halkaasi oo uu si maalinle ah uga waday shaqadiisa ku aadan dib u dhiska ciidamada qalabka sida waqtiga inta badan waxaan siinayaa ciidanka waqtiga inta ugu badan dhaqaalaha inta ugu badan ciidankan siinaa oo aan leenahay wax walba dhanka dagaalka xagga dagaalka ilaa dalkan aan ka xoreynayno oo aan ku soo dabaalayno nabad marka waxa qormay waa taariikh waxa weeye waxa la yiri waari meesida warsan ka haro war ka haro kaliya ma aha waari meesida war fiican ka haro marka taariikh baa qormaysa shalay sidii aad ula dagaasheen waxa la rabaa inaan shanjibaarno uusan marnaba caajisna gelin walaalayaal hawlahan qabanay waxa kamid ah inaan tirakoob sax ah sameynay oo ay wax noo kala cad yihiin had ciidanka shaqeeya ciidanka aan shaqeynin ciidanka howlgabka u baahan ciidanka dhaawaca agoonta waxaan gudbinay sharciga xaqsiintaan gudbinay oo aan doonayno baarlamaanka sida u dhaqsiyaha inuu ansixiyo si dad badan oo de active u ah ciidanka u ah ay u galaan dhanka xaqsiinta oo mushaharadooda inta ay ku qaataan iyagoo howlgab ah kuwa dhaawaca saas oo kale agoonta sidaas oo kale oo aan kala naqaano ciidanka diyaarka ah oo hawlgallada gali kara oo frontiyada fadhiya iyo kuwa dhaawaca ah oo u baahan in la taakuleeyo aan la isku qasin taas waxay noo suurtagelinaysaa marka imise ciidan yaan u baahannahay inaan maalin walba tababaranno imise ciidan yaan u baahannahay inaan tababar u dirno dibadda waxaas oo dhan yana siinaysa marka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo wax naga halaabayo ma jiraan waan isku tashanaynaa waana u wada istaageynaa difaaca dalkan hawlgalladan bilaabanayana insha Allah waa ku guuleysanaynaa waana isu diyaarinaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo gesiga dhulkiisa gusha u horseeda geerida dishaay geedka haqo
dowladdu waxay xoogga saartay in ciidamadu helaan xuquuqdooda sida mushaharka gunooyinka iyo raashinka qof wal oo dowladda lacag ka qaata kow inuu lacagtiisa helo isagu oon cidina dhexdhexaadin cid dhexda u joogsan qof waliba lacagta inuu isagu helo ayaa lagama maarmaana waxa markaa loo baahan yahay waxay noqotay inaad isregister garaysaan oo account furataan bishu markay dhammaato ama bisha kale kowdeedana insha Allah aan lacagtaadii ku soo wareejino sidoo kale madaxda qaranka ayaa furay tababaro kor loogu qaadayo aqoonta ciidamada kala duwan sida militariga booliska iyo asluubta waxa isbedelo lagu sameeyay hogaamada ciidamada iyadoo markii ugu horeysay hormuudka hogaamada ciidamada loo magacaabay saraakiil dhalinyaro ah oo tababaro ku soo qaatay dalka gudihiisa iyo dibadiisa khibradeedu waa leeyihiin wadaniyadeedu waa leeyihiin waa soo aragteen dawlad istaagan oo xoog leh waa soo aragteen dawlad wanaagsan oo diyaar u ah inay hormuud idin noqotana waa haystaan oo annaga koow ka ah inaan ciidamada inaan la gala dagaal shacab wanaagsan oo baaruday oo soo jeedana waa haystaan oo dawlad taagan oo garab siinayna waa haystaan cid kale oo Soomaaliya u maqan ma jirto aan idinka ahayn waxaan idinka codsanayaa waajibaadkiina sida uu yahay oo ugu dhaaratay inaad u fulisaan oo aad ka fogaataan wax alla wixii dalkan burburiyay aad ka fogaataan kumanaan dhalinyaro ah ayaa si mutadawacnimo ah ugu soo biiray ciidamada qalabka sida iyagoo ka jawaabaya baaqii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in dhalinyaradu dalkooda badbaadsadaan kuwaas oo ka kala yimid guud ahaan gobolada dalka lana siiyay tababar ciidan oo dhameystiran hadafkeenu wuxuu yahay anagoon ka weecan nidaamka daacadnimada waajibaadka iyo sharafta wadanka isla markaasina ah tusaale askari dhameystiran anagoo ka shaqeynayna ammaanka ciidankeena kuna tiirsan ama daacad u ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya madaxda dalkay xoogga dalkana kuwa daalin baan nahay u dulqaatay dhaxanto amar diidin baan nahay madaxda dalkay xoogga dalkana kuwa daalin baan nahay u duljiray dalkooda madaxda dalkay wadada dhaartay baan nahay imisa dagaal iyo dab yar ruumi soo galay dibnaheena dhaawacay dhiigaba ku daatay madaxda dalkay annagoona doonayn darajiyo biladi dawadeeda maan helin dawadeenu waxay tahay waddankoo nabad sugan annagoo dal xisno damaashaad ku marayno ciidankii dalkaygow dunida cajabise cimrigayga intuu jiro cayradaada oo kale bili nooma curan bildad laga cabsoodiyo duni caaradeedoo cidigaarin baa tahay calankaada nuurkiyo ciiddaada hodanka cidlo weli ma arago cid kale umay caban ciidankii dalkaygow ha caban ha calaacarin ha u caman dhulkaadoo cindigaaga yeegelin cuqdad iyo qabiil baas dadaalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu keenay in sanad iyo bar kadib la helo ciidamo kooban oo tayo leh iyo in askari walba uu yeesho koonto ay bil walba ugu soo dhacdo xuquuqdiisa mushahar taas oo aan baaqan hal bil muddo sanad iyo bar ah ciidamadeena qalabka sida qaranimada difaacaya quwadooda waxa ka baqa qaayinkiya cadaawaha ku qanacsanto